الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. إلهي مهديسة ولا ليال ومدى مسلمين تا قارهان ومدى صوماليات دلك يدي بدى جوكتا وعانو جوغنا مسجد وين oo bilaaban oo aasaaskiisu uu taagan yahay oo ku yaala magaalada Muqdisho xaafadda Howlwadaag meesha la yiraahdo maaragtay shanta geed ama samaartay xiradii cagadhiig la dhihi jiray agagaarkeeda ah masjidkaas waxaa loo waqfay marxuum sheekh caalim ah iyo culimadii Soomaaliyeed mashaayikhdu waaweyneed ah oo maaragtay 75 sano mootan oo Ilaahay u oobsaday waqtigaas ka hor dadkan muslimiinta oo Soomaaliyiinta soo gaarsiiyay iyo khayrka iyo suluugana dadka ugu horeeyay kamida masjidkaas ayaa la aasaasay waxaa meeshaan soo galay waqtiyaalo badan oo duruufo badan ay yimaadeen dagaaladii ka dhacay wadanka oo sokeeye iyo mashaakilaad fara badan ayaa yimiday waxaa suurtageli waayeen in masjidkaas la dhamaystiro inta hoosano ayaa maaragtay masjidkan uu taagnay masjid weyn oo masjidul jaamica weeye masjidkan marka waxa weeye sida injineeradii cabiray ama sahaatan ku celiyay cabiraadda ay sheegeen in wax badan masjidka ay ka baaba'san yihiin sida tiirarkan aad u jeedaan oo gudaha ku yaala oo kulligood in la dumiyo ay noqonayso oo dib loo sii aasaaso marka waxa weeye waa masjid bilaaban hase yeeshee waxa weeye masjid oo kooba waxba aanan dhaamin oo intaas oo sano meeshaan ku baaba'sanaay 29 sano ay gaaraysaa marka waxaa la rabaa dadka Soomaaliyeed oo khayrka jecel oo ihsaanka jecel oo ilaahayna ayagana uu jecel yahay wallahu yuhibbul muhsiniin oo ilaahay dadka muhsiniinta alla waa jecel yahay إن رحمة الله قريب من المحسنين أيوضها الله سبحانه وتعالى إلهي نحريسي سوحي ولوذها يددك محسنين تا رقية ضمر بإسكالة وحان مارت يا أقواني ماشان شركة كان أن أقواني أن أويرني صحافة إن وحي خير مركي دعايان أن ميل إدقونية إيسان كقار نغنين وحاوي مسلمين تا صومالي رقية ضمر وحي كلوليهن دالك دباديسي كليهيسا dadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala xoolaha uu siiyay inay masjidkaas ka qayb qaataan maxaa yeelay rasuulkeena Kaleey salaam wuxuu dhahay man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah bana Allahu lahu mithlahu fil jannati qofkii masjid dhisa asagoo Ilaahay rilihiisa ku raadinaya Ilaahay masjidkaas oo kale tood ayuu dhisayaa ayaa jannada loogu dhisayaa hadda marka beed Ilaahay uu jannada ku dhisay wax laga sheekay kara maahano jannadu hadda waxa weeye walaxan markaasi aqliga hadda nagu jira iyo dhigaha nagu yaala iyo aan lagu fahmi karin marka wuxuu helayaa wax khayr oo aan la soo koobi karin waxa kale oo noqonaysa sadaqadii jaariyada heeday oo waxa weeye qofku markuu dhinto amalkeedu uu soconayay hatta markuu qiyaamad tago darajadeeda ay u soconayso marka waxa la rabaa marka warka aan ka hadalno muhiimadiisa aynu ka hadalno in beydkaas Ilaahay shaqa ka socoto hadda shaqadiisi bilaaweeye qof kasta oo Soomaaliya oo muslima iyo muslimiinta kale hadii la gaarsiin karo in beydkaas Ilaahay oo ku waqfan caalimkaas weyn oo Soomaaliyeed in maaragtay loo soo gurmado oo masjidkaas la dhiso oo lagu soo hagaajiyo ahaladiisa iyo dadkiisa lagu soo hagaajiyo maaragtay dhaqaalaha markaa masjidka ku baxaya lacag hadda injineerku waxa uu sheego meesha noogu qoran lacag gaaraysa 249,000 iyo 400 iyo maaragtay 30 lacagtaas hadda waxa weeye waa inta hadda la qorsheeyay waxaad ogtihiin dhisma markii la galo intaas iyo in kala ku sii bixi karaysa waa masjidul